hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu digtay xiriir iyo la macaamil inay la sameeyaan bulshada Soomaaliyeed nin lagu magacaabo Xasan Cali Maxamed Xasan Afgooye oo kooxda argagixisada u qaabilsan dabagalka xiriirka shirkadaha iyo lacagaha baadka ee laga qaado bulshada Soomaaliyeed. Qoraalkan ka soo baxay hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu digaynaa in ay macaamil iyo xiriir la sameeyaan Xasan Cali Maxamed Xasan Afgooye oo kooxda argagixisada u qaabilsan soo qaadista lacagaha baadka ah iyo xiriirka lala sameeyo shirkadaha Soomaaliyeed. Hay'adda NISA ayaa sheegtay in ay si dhow ula socoto xiriirka uu ninkan sameeyo iyo sidoo kale aaladaha baraha bulshada uu ku isticmaalo ee bulshada Soomaaliyeed uu kula xiriiro. Waxa ayna dadka ugu digeen in ay ninkan la sameeyaan la macaamil sidoo kalena ay ka fogaadaan goobaha uu joogo. Hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqday haddii ay helaan xogta ninkan lagu magacaabo Xasan Afgooye ay u ballan qaaday in ay abaalmarin guddoonsiin doonto.